dalkan xaaladda uu ku sugan yahay waxaan ka dignay inaan la imaan meesha maanta la taagan yahay oo ah inuu dalku god ku sii dhacayo oo ka mas'uul yahay madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday waqti horaan sheegnay in muddo kordhinto ama fikirka muddo kordhin ama xukun isku dhajin ama ciidan isticmaalid iyadoon sharci ahayn inay dalkan dib u dhac weyn geenayso iyadoo madaxdii dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalku ay fadhiyaan inta aanan madaxweynaha dhamaan madaxweynaha xilkiisu dhamaaday hadda ayuu gogoshii dhuusamareeb ka soo istaagay adduunyada ayaa dib u soo yaglaashay markuu marar badan isku dayay muddo kordhin ama madaxweynayaal weeraro ama madax kale weeraro ama waa ciidan isticmaalo oo aan niri xikmadda soo hartay waa ciidan kaliya aan ka dignay ayaa adduunyadu waxay ku guuleysatay inay mar kale villa Soomaaliya ka soo kaxayso isagii oo teendhada afisyooni Soomaali isugu keento markii isagu uu ku fashilmay shaqadii kaliya oo qaranku ka rabay tiina iyadoo la fadhiyo ayuu sida aad marxaatay ka tihin ka tagay maanta waxa ay maraysaa in ciidankii Soomaaliyeed ay ku kala qaybsamaan damaca madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday waxaan rabaa marka saddex fariimood inaan halkan ka diro fariinta koowaad waxaan u dirayaa shacabka Soomaaliyeed qofkii fahamkiisu liitay meesha madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday uu dalkan ku waday marxaati waxa kuugu filan meesha hadda la taagan yahay qof walba Soomaali ah inuu aqbalo waayo maanta dariiqa uu madaxweyne Farmaajo xilkiisu dhamaaday dalkan ku wado god buu ku wadaa waa inaan hadda ka sii dignaa taariikh baa isqoraysa oo maanta isfasiraysa labo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo taliya Saadaq oo garaawsaday in la soo gaaray waqtigii uu shacabka iyo dalkiisa u helin lahaa oo fahmay inaan la ogolaan in xildhibaanada la caburiyo inaan muddo kordhin lagu sameyn baarlamaan isagaba waqtigiisu dhamaaday inaan ciidan ummadda Soomaaliyeed lagu caburin taliya Saadaq wuxuu muujiyay tusaale ay mudan tahay in dhammaan ciidamada kale ay ku daydaan dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo ciidanka oo aniga i garanaya oo la soo shaqeeyay oo ahaa laf dhabarkii dib u habeynta ciidanka oo u sahlay in mid walba uu mushaarkiisu qaato oo u sahlay in ciidanka dib u habeen lagu sameeyo ma idin kugu sameeyeen dalkana habeen iyo maalin uga ma shaqeyneen inaad aniga soo weerartaan ma u sameeyeen inaad dalka dumisaan ma u sameeyeen in waqtigiisu dhamaaday oo raba inuu xukun joogo diidanna inuu doorasho galo inaad aqbashaan taliya Saadaq ayaa idin kugu filan tusaale waxaan rabaa dhalinyarada Soomaaliyeed inaan u sheego nin waqtigiisu ka dhamaaday amarkiisa haddii aad raacdo oo aad khalad ku gasho dambiila tahay waana laga daba imaanayaa maantaad fursad haysataaye maanta fursadaas ka faa'iideyso waxaan rabaa inaan u sheego beesha caalamka marar badan ayay nagu soo celceliyeen oo yiraahdeen waxaan ka shaqeynaynaa doorasho haddii madaxdii dawlad goboleedyada oo halkan fadhida uu madaxweynihii xilkiisu dhamaaday teendhadii ka dhaqaaqay kadibna uu u yeertay baarlamaan waqtigiisu dhamaaday si uu muddo kordhis u helo haddii aad tusaale u baahnaydeen tusaalihii waad haysataan macnaheedu waxay tahay maalgelintii Soomaaliya aad ku samayseen mid amni mid dhaqaale waa inaad fahamtaan in dalka dhaqaalihiisu hoos u socdo amnigu hoos u socdo adduunyadii idinka aad ka sii kala jeesan rabtaan ummadii niyad xumo ay ku jirto hal qofna uu mas'uul ka yahay waa ninka xilkiisu dhamaaday doorashana aan rabana inuu xukun qori ku haysto taariikhda qoraysa taariikhdu waxay qoraysaa qofna xukun xoog kuma haysan karo xukun
qofna xoog kuma haysan karo waa ognahay farmaajo inaanu dalkan xoog ku haysan karin waxaanan ogeyn waxa uu dalka ka hadlaynayo maxay la eg tahay cidda la raba inay hor istaagtana waa annaga sidaas daraadeed waxaan leenahay beesha caalamka waqtigii dhinacyada la fiirinayo waa soo dhamaatay hal nin baa khaldan dalka ha laga qabto ummadana waa in laga badbaadiyaa shacabka Soomaaliyeed 30 sano oo khibrad ahaan leenahay aan ka faa'iideysano tusaalahaas dibna yaanan ugu noqonin waa mahadsantiin